ra-iisul wasaaraha kulankan uu qabanayo waa kulankiisii labaad oo shaqaalaha la yeeshay waxayna ahayd xog iswaraysi inuu dareemo shaqaalaha waxay dareensan yihiin inay u sheegaan wixii horumar uu xafiiska gaaray wixii tabashaha hadday jiraan wixii ay kusoo kordhin karaan ay tala ahaan iyo tusaale ahaanba shaqaalaha ayaa iska lahaa shaqaalaha waxay warbixin dheer naga siiyeen siyaabaha ay shaqooyinkooda u gutaan ma ahan mid laisku imtixaamayo laakiin waxay in fikradooda uu ra-iisul wasaaraha dhegeysto waxaa kaloo laga hadlay inuu xafiiskan u noqdo hormuudka xafiisyada waddanka ka jira waana sax waa xafiiska laga maamulay waddanka in ay shaqaalaha dareemaan in ay hormuud u yihiin wax walbo ay qabanayaan inay tahay mid ku dayasho mudan in musuqmaasuqa aan noqono dadka ugu horeeya oo la dagaalama in markay howlkarnimo timaado ay noqono xafiiska ra-iisul wasaaraha dadka ugu howlkarsan in marka ay noqonto isxaadirinta oon maantaba meel fiican marayso aan noqono xafiiska ugu fiican shaqaalahan aad ay u riyaaqeen waxaa laga hadlay in ay ka mid noqdaan istixqaaqanka waddanka lagu soo rogay inaan ku dhisno inay qayb weyn ka qaataan xafiiskanaga qayb weyn ayuu ka qaataa laakiin waxaan u baahanahay inaan sii dardargelino aan kasii fiicnaano waxaa laga hadlay waajibaadka saaran shaqaalaha iyo xuquuqda uu leeyahay waxaa taasna laisku raacay inay tahay labadaba laba shay oo baahan in la iswaafajiyo marka ra-iisul wasaaraha shaqaalaha aad ayay ugu mahad celiyeen inuu kala soo kulmay markii labaad uuna rajaynayo marka saddexaad oo noo yimaado in waxyaalihii tabashada ay ka soo jeediyeen warbixinadii ay bixiyeen in wax laga qabto oo xafiiskana horu socdo